بسم الله الرحمن الرحيم maanta taariikhdu tahay 31 bisha August waxa halkan ila fadhiya gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee xisbiga wadani xildhibaan Cabdilqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde oo halkan kaga qaadi doono waraysi hadii alla idmo mudane su'aasha ugu horeysay aan ku weydiinayaa waxa weeyaan taariikhdaada gaarka ah ee ciidan iyo siyaasadeed. بسم الله الرحمن الرحيم دعي مدن وكسو شقيي روح برشنا waxaan u tagay dalka Ingiriiska iyo Ruushka marka Ruushka aan ku reemay dalka Ingiriiska aan ku dambeeyay intii 91kiina xilal baan ka soo qabtay kala duwan oo heedii miinasaarka ayaan gudoomiye ka noqday markii dambana waxaan noqday gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka 1997 إلا 1997 كنا حلبان بانهاي إلا إمك وياهي سؤال اللي بعد أنا قلت بيا وحويان ضدك أنس معمول كريم دلك إنه آد بفرق بديه وضدك حس كود دمية هاي بنو ده واللي بقى حيجنا الصور راعة ضد يجونا قبلنا وأن عد عاوز لهاي الدون أي يسكون معمولان أما استعمالان هاي السنين ما كلها هاي مسؤولين تقرنكو إني فهمان حلك كوبات إدين عذرية الكسرانين ودت كاسياي. أرتو حوي دي دستور كل كجرت عذرية الكود واللي جبر عروسان يأخذ بوقارة أي أشياء واحد من المشروع دي يستركتر كلا سمين لها وحوي ضدك دي مسؤوليته كل دولة كسرت سيرنا كور قبنا الدون كان هذه الشيء هيدا سما فلقنا يددت كده محسنين تينا وكقيب قاطع ويمكبا وحوي هبقا باكرة ضد بدن با إسراء وحكا قبته لكن سبالياع يو دوبليكيشن يو قرشة الآن أياد عضا مرك حير كلا سمايو وحا يمنا يسين قرشة يسرق الله سمايو هل كي لغاين لها دي حنانين لهاي يعد كقيب قادنا سوى قدر سنة يسا هل كي كين لهاي يمكن وحوي magaaladu dhan waxa ka wada furan guriyo private oo cilaaj lagu magacaabo oo aan dadaan moogta qualified ahayn oo nu darbanayn oo laga yaabo in waxyeello kala baday uga sii daraanba marka dadku wuxuu doonayeen wax ka qabto laakiin si cidii haagi lahayd iyo shuruucdii structure-gii haagi lahaa kaana dawladdu ba samayn karta meel laga umkaana way taalo dastuurkii la ansixiyay 2001kii qodobo gaar u siinaya marka annagu waxaan rajaynaynaa in ay nagu guuleeyo inanu dariiqa sax raacno oo shuruucda wixii ka qabyaa la sameeyo structure-kiina la sameeyo marka la isu keeno dadkii muxsiniinta ahaa ee damqanayay ee doonayay wax ka qabtaan iyo halkii loo xanaanayn lahaa oo dawladdu barafaarid garayso oo cusbitaaladeedii iyo meelaheedii dadkuna aanay dawladdu isaga gudbinay loo ogolaado qofkii muxsina wax ku darsanaya inuu wax ku darsado oo sidaa marka iyadu iskaashi hadhowtan haddii loo taagi waayana in la kaashado dawladahan saaxiibka nahay iyo hay'adaha caalamiga ah laakiin si ay qiyaadadeeda iyo hogaaminteeda iyo isku dubaridkeeda ay xukuumaddu yeelato qoysku waa seeska qaranka qoysku hadduu hagaago qarankuna waa hagaagaya waxa aynu la wada soconnaa in qoysaskeena badankoodu ay dhaliil badan leeyihiin guryaheena badankooda ay ka soo baxaan oo ka soo barbaaraan caruur tuugnimo budcadnimo iyo dhaqan xumo intaba leh xisbigaaga maxaa siyaasad ahaan arinta uga qorshaysan horta waxa weeye horta noloshii baa keentay markaynu qaxnay ee dabada loo qaxay family unit-ku isbedelay oo ninkii iyo xaaskiisii caruurta u wada adeegayay waxa ka baxay mas'uuliyaddii ninka meesha ka baxday xeer qaxooti baa la galay islaantii baa kaarka qaadatay islaantii baa mas'uuliyaddii reerka qaaday halkan aan la soo galay amal la'aan baa jirtay burbur baa jiray labadii way shaqo tageen waxa weeye dawladdu deynay caruurtii iskuulka ku hayso oo ilmo wal oo dalkeena joogaaba markuu da'da gaadho aanu iskuul waayin markuu inankiina iskuul la waayo waalid hagana waayo waa markaa waxaana sheegaysaa dhalanaya waxaasina dee waa meel kaliya kama socotay waa wax la isu wada mujtamac oo dhan ba ayaa mas'uuliyadda leh
marka horta waxa weeye inuu mujtamac oo dhan ka wada qayb qaato mas'uuliyadda dawladda ka saaran waxa weeye horta in daryeelka qoyska wasaaraddeenu u sameeyay xeerar bay leeyihiin in daryeelkii qoyska la helo in waalidkii uu dad shaqo ku hawlan oo wax soo saaro wax keena noqdo waadina arko inaga dawladahan reer galbeedku qoysku markuu shaqo tago ilmaha waa laga hayaa inagu ilmihii weli heerka ma gaadhan kaga hayn lahayn laakiin se waxa waajib ah in caruurta horta iskuul loo hayo oo inta waalidku shaqada tagayo iskuulka ilmihii mas'uuliyadiisa ay fuusho xukuumadda iyo iskuulka ee aanu shaarica noqon marka waa waxyaabaha duruufuhuna keeneen laakiin sida u baahan in lagu baraarugo laga wada yeesho talo waxa aan ku weydiinayaa su'aal dhinaca ammaanka la xidhiidha dadweynaheenu booliska inta badan dhaliilo badan bay u soo jeediyeen oo kala duwan mararka qaarkood waxay dhahdaan ilmaha yar ee 10 jirka ahi kama cabsoonayo in ninka booliska ahi orod ku soo qabto iyagoo u jeeda in booliska badankooda balwadi dishootay iyadoo la og yahay booliska laftooda in xuquuq badan ka maqan tahay haddana dadweynuhu cabasho badan ayay tirsanayaan ma kula tahay ama ma idin qorshaysan tahay in booliis iyo bulsho isjecel oo mid waliba xilkiisa ka soo baxo in la abuuro oo la diyaariyo horta anuu xaadir baan markii booliiska Soomaaliland la asaasay qaabka lagu asaasay wuxuu ahaa kootabeeleed gobolka Hargeysa intaas soo beelood baa degto inta keena gobolka Togdheer intaas reeraha la soo leeyahay keena reeruhuna cid keenaya wad garanaysa waxa weeye askarigu marra waa ka aanu ka cabanayno aynu leenahay ummadii culays ku haya marra isagiiba dulman oo dulmaya anuu sarkaal ciidan baan ahaa askariga aad xukuntaa haddaanad hooygiisa ka warhayn haddii aanad gogashiisa ka warhayn haddii aanad labaskiisa ka warhayn haddii aanad xuquuqdiisa oo dhammaystirin hawl loo madri kartid mana dagaal galin kartid ciidanku inaga saasoo ku bilaabmay bileysku mar qalluuc halkaas uu ka galay rag badan oo professionalist bileyskii hore ah ayaa gacanta galooris waxa ka qabta Cabdidhabo baa kamid ahaa waxa kamid ahaa Umar Dhimcaale waxa kamid ahaa Maxamed Saqadhi raggaas rag aqoon yaraan haysay ma yahayn waa rag bileyska adduunka ugu wanaagsan ee Ingiriisku kulladiisa ka soo baxay oo saraakiil Ingiriis la soo shaqeeyay oo nidaam dawliga garanaya way ku adkaatay inay toosiyaan way sartii hoose ay ka qalloocatay imika isbedel uu socdaa oo dhalinyaro la qoraa dugsiga wanaagsan ama dheer uu furan yahay uu socdaa reform laakiin reformkaasi dadku ma sugi karayo askariga ilaa xuquuqdiisa loo dhameeyo isaguna dadka xuquuqdooda ilaalin maayo mushaharadu kuma filla liinkii bileeska waa tan oo inuu halkan joogno waa guryahoodii ku nimka la iibinaya guryihii bileesku deganaan jiray ayaa imika la iibinaya oo niman tijaara laga iibinaya waxa laga yaabaa askariga maanta inuu ka sugana hawshu xalay inuu roobka da'aya geed hoostii kaga gabanayay unguroodu siin saartay geedka saan roob ugu soo diin aroortan waxaad ka sugaysaa inuu naftiisa huro oo tuug mindisita ama qorisita oo ka hortago marka horta waxa weeye waa dariiq dheer bayna sugaya dariiq dheer ayayna sugaya laakiin sameelan ku bilowno inuu haynaa dawladdu laan jiray Soomaaliland police bay lahayd police Soomaaliyeed bay lahayd oo qalabaysan oo tababaran oo isgaarsiin leh oo gaadiid leh oo diyaarada leh oo cusbitaalo leh ayaynu lahayd waa la soo celin karaa laakiin waxay u baahan tahay dadaal iyo loo helo miisaaniyad imkada nafteeda ayaa loo kabi karaa mushaharadu maanta waxa sicir bararkii baa la go'ay inuu maanta soo shaqo tagay inaan soo shaqo tagay wax laga yaabaa inaan soo shaqo tagay inuu suuqa tago oo ugu roonaan lahayn
marka iyaguna waa dulmanayaal horta taa aynu ku baraarugsanaano iyana xuquuqdoodii ha loo raadiyo su-aasha kale aan u gudbayaa waxa weeyaan waagii hore laaluushka qofka qaadanaya uu la xishoon jiray marka la siinayo ma odhan jirin laaluusha la siiyo laakiin shaqada laga sugayo ayuu la gaabin jiray si wax loogu dhiibo dabeetana qofka shaqada ka sugaya intuu wax u soo qoondeeyo isagu ayuu isagoona arkaynin jeebka u gelin jiray maanta waxay maraysaa in xafiiskii qaranka gudihiisa iyadoo la fadhiyo lagula gorgortamo si cad oo weliba lagu dhaha intaa haddaanad bixinaynin iska tag sidee arrintaa wax looga qaban karaa arrintaas horta waa laba siyood midna waxa weeye dee waa civil service-kii dowladda dadkii waxaa jira civil service commission baa jira civil service commission-kaasay ahayd shaqaalaha inuu gacanta ku hayo qoristooda dallacaadooda beddelkooda erigooda gacanta kuma haya imika nin wasiira ayaa ka bannaanaanaysaa wasaaraddiisii ama hay-addii madaxda ka ahaa shaqaale ka bannaanaanaya isagoon civil service commission soo marin hay-addii shaqaalaha soo marin oo ninkii aan dee la fedgarayn oon la baadhin criminal record ma laha muxuu ahaan jiray matuug buu ahaa malaalushqaatuu ahaa xagguu ka soo shaqeeyey raadraaca ma leh ayuu nin in adeerkiisa u keenaya waxaa dhacda maanta wasaaradaheena ka jira oo hubaala shaqaalaha wasaarad ka wada shaqeeya oo kale mushaaharo badan mushaaharadii wasaaraddu siin jirtay waa la wada siinayaa laakiinse intaa wasiirku doonayo ama maareeyuhu doonayo mushaaharo qarsoon oo shaqaalihii kaa ka badan ayaa la siinaya shaqaalihii meesha la joogana way og yihiin waxaa ku leeyahay kaasi waa 2 mushaaharo qaata ama 3 mushaaharo qaata marka horta waxa weeye in lagu soo celiyo halkii lahaan jirtay oo shaqaalaha dawladda cidda xukunta ay noqoto civil service commission oo marka ninka grade la siinayo B laga dalacniyo ee la geenayo imtixaankii laga qaadi jiray weligeed shaqaalaha dawladda marka la qoray imtixaan baa laga qaadi jiray imika waxaynu ognahay in mushaaharo in shaqaale imtixaan laan lagu qoro waxaan arkaa inuu dhagahayga ku maqlay civil service commission ninkii joogay ayaa wuxuu noo sheegay way de controlaan oo inta eeda noqonaysa inta bida noqonaysa inta sida noqonaysa wasaarad walba ila moodo noqon karaan gareeray waa inuu proportion jira waxaan aragnay inuu wasaarad lagu soo kordhiyay 140 gareeray oo nana nagu ogeyn oo more than 80% isku reer tahay ninkii wasiirka qoray reerkiisa ay tahay waa sheeko dhaba markan madaxweynaha uu sheegay in arrintaas dhacday wuxuu dhimay kawal inuu kacay reerkaas inuu kacay hadda diridee bal imtixaan ka qaad adcafu iimaan waa ninkii de xaraamiha wasiirkii ilaalin lahaa markuu sidaa u dhaqmayo kii aan wasiirka lahayn maxaad ka filaysaa saddexda mushaar lagu qaadanay uu og yahay muxuu sameeynaya soo gacanta soo dhaganaya waarigu rid buu qoranaya hadii kale waxba ku qaban maayo marka waxa weeye in horta lagu soo celiyo anagu tan sameeynayna waxa weeye waxaan ku soo celinaynaa civil hay'adda shaqaalaha awoodeedii baa loo deynaya hay'adda shaqaaluhu waa independent hay'ad madax bannaan oo ka madax bannaan wasiirada oo wasaarad kasta baari karta oo mandate-keeda dastuurku cadeynayo anagu hay'addaasaan soo nooleynaa noo noqonaysa entry point laga geliyo dib u habaynta shaqaalaha disciplinkooda tababarkooda mushaaharadooda daryeelkooda oo loo gacan dhaafin taasaan u damaanad qaadina taas markaa waxa keenaysaa shaqaale tayo leh oo mushaahar wanaagsan qaata oo la tuujiyay oo tacliintoodii loo ogyahay waa gartay waxaan u gudbayaa su'aal kale oo iyaduna aan isleeyahay aad iyo aad bay muhiim u tahay waxa weeyaan golayaasha wakiilada iyo deegaanka waxa xilligan aynu ku jiro soo xula qabaa'ilka waxa soo xula waliba odayaal aan waxna qorin waxna akhriin badankoodu oon cilmi diineedna lahayn mid maadiyana lahayn mudnaanta koobaad ee qofka soo xulayaan siiyaan waxa weeyaan
inta uu lacag haysto waxaanad moodaa natiijadeedii taas iminka inay dadku aada u xanuujisay miyaanay ahayn in xisbiyadu qofka soo xulaan u qalma xilkan ee ummaddan xilkeeda qaadi kara kadibna ay yidhaahdaan ummadda cod u doono waxa weeye horta dee dhaqankeenna waa taqaanaa dhaqankeenna waxa weeye waa dhaqan qabaliya ninku si uu xisbigaa ugu caddeeyo inuu taageero haysto oo cod u keenayo horta reerkiisa uu soo abaabulaya waxa weeye codkeenna inta badan wuxuu noqday clan based ama deegaan based qabiil ama deegaan xisbiga dafire labadaasna dee wuxuu og yahay cawaaqib xumada uu keenayso marka maxaa la sameeyaa ninku qabiilkiisa soo abaabulo laakiinse xisbigu wuu fadgaraynayaa wuu fadgarayn karaa wuxuu odhan karaa waar ninkan adeerayoolkan inaga daaya wax kaloo la samayn karaa oo dee axsaabta qaarba sameeyaan musharaxiinta markay beeluhu keenaan dad aan beeshaaba ahayn oo dee haykalkii xisbiga madax ka ah ayaa shaandheeya oo shaandhayn karaa odhan karaa norway kani mari maayo kana nagdood horgeyn mayno marka sidii labada la isu waafajin lahaa midda kale waxa weeye innaga dee axsaabteennina weli axsaab dee hoos u daadegtay weli ma aha oo dee jaanisba uma helin hoos u daadegaan markuu xisbigu hoos u daadego ninka musharaxa imika laga soo dooranayo bilmasel waxaan ku idhaha gobolka sanaag oo kale waa inuu ka soo bilaabantaa laanta xisbiga ee gobolka sanaag recommendation ka soo bilaabmaa imika sidaa uma dhacda wuxuu ka soo bilaabmaa odayaasha gobolka ayuu ka soo bilaabmaa qolada gobolku soo maraa xisbigu markaa wuu fadgarayn karaa laakiinse taasi waxaan leeyahay anuu markii xisaabtu inoo dhisanto ee dadkeennu uu ka baxo mustawahana ah tartan baa imika waa tii aayad qur-aana waxay tidhahdaa alhaakum الtakaathur xataa zurtum almaqaabir xabaalaha la soo tirsaday annagaa idinka badnaan jirray de intaasaa naga dhimato bal xabaalaha yaa soo eega iminkayso tirsi wuxuu noqday sanduuqa annagaa idinkaga badsanay waa tii beelihiibaa ayaa sidaa berigaa aayaddu u soo degtay harta xabaalaha ku tartameen beeshu dimuqraadiyadda garan maysa waxaa ku tartamaysaa imisaanu ku rinday sanduuqa annagu marka waxay wato dhaqankaa beeshuna dee wuu zuuli doonaa oo markuu dee urbanization ku yimaado ee dadku reer magaal noqdo ee dhaqaaluhu kore ee xiriirkii beeshu uu furfurmo markaa imika waxa weeyaan axsaabtu inaanay hororo ku soo dayn dadka ee kaa reerku u keenayo hororka ah inay mekanism isku hortaagi karto ay leedahay waxaa la sameeyaa guddiyaa la sameeyaa anugu berigan udub ahayn guddi baa jirtay fadgarayn jirtay kaa ay beeluhu keeneen oo tidhaahda war norway kani mari maayo niman yahow kan ma qaadanayo oo inuu xisbigu dee last wordka yeesho final wordka uu leeyahay horta waa heedhal waa musdambeed loo dhigi karo marka dambena waxaaba la gaari doonaa badayn taan kuu sheegay inta xisbiga la daadajiyo aan xaruntan hargeysa liiska lagaga qorin ceergaabo joogay dadka ceergaabo joogaan ee ninkaa liiska ku soo qoraan oo isaga soo gudubta halkan timaado taasina weli dee axsaabtiisa aan oguma islaano isaan oguma dhisna marka waa carqaladin hortaagan oo insha allahna dee waxa mushkiladda markaad og tahay dawadeedana waad heli kartaa marka imika mushkiladda waa la ogyahay mar haddii la ogyahayna xalkeedii dawadeedu waa dhow yahay inta badan dadku waxay filayeen markii xisbiyada la sameeyey in qabyaaladda lagaga maarmayo odayaashan reeraha ee siyaasadda dhexboodaya lagaga maarmayo oo dee xisbiyadu wixii oo dhan hawsha oo dhan qabanayaan laakiin waxaabaad moodaa ka maarmo waa lagaga maarmay iska daayay dee xisbiyada laftoodii in qabyaaladii liqayso ma horta dee waxa weeye waxa way ka tartay qabyaaladii wax weyn horta way ka tarto dee waxa weeye maanta qabiil wada socdo oo meel wada marayo oo dee odhanaya annagu xisbigaasaanu nahay dee ma jirto saddexda xisbi berigii aanu dooranay waxaanu u dooranay inaan reer keliya intuu isku filaado aanu keligii dee baarlamaan u dhoomineed gareeyo iyo madaxweyne u doorto reerra aanu gaadhin taasi maxay keenaysaa markaa saddexdii xisbi
qabiil walba inuu uga timaado tan ku carray inaga waxa weeye madaxweyne reer kaliya doortay dawlad reer kaliya ka kooban oo intii kale u baahnay saddexda xisbi waxay daciifisay tartankii qabaalka way daciifisay oo qabiil kaliya intuu meel istaago maanta meel gaadhay ma jiro labadii walaalaha ama ilmaadeerka ayaa mid walba dumuxaad gaar leeyahay labada xisbiye saddex xisbi kala galaya waayahay xisbiyadiina siyaasadda dadweynaha badankoodu waxay ku xantaan inay waqti badan geliyaan isdhaliilidooda iyo wax iska sheegooda gudaha oo aanay waqti badan gelin barnaamijkooda siyaasadda taa maxaad ka qabtaa axsaabtu waxay noqonaysaa activity-gooda ku koobna markay activity-gooda ku koobnaato doorashada keliya waa markay ay noqonayso in isdhaliisha iyo dadka la kala jito laakiinse xisbigii haddii aanay activity-giisa iyo shaqadiisa iyo aanay ku koobnaan doorashada marka doorashadu la activity gareeyay inta kale oo dhan oo shaqaynayo barnaamijyo u baahanaya hawlo u baahanaya marka waa laga mashquulayaa hebel baa caynkii heblaaya caynkan tiri oo xisbigii xisbi ururkii dhalinyarada lahoo niqaabaadkii lahoo 5 sanadoodba shaqaynaya ayuu noqonayaa laakiinse hadduu noqdo in xisbi markaa doorashadu soo dhowdahay mushirada istaadha taasaa imanayso naqdigaa badan saasuu ka imanaya su-aashayda ugu dambaysaa waxa weeye xisbiga kulmiye iyo xisbiga wadani qaar badan oo dadweynaha ka mid ihi waxa ay aaminsan yihiin in mid waliba guushii isa siiyey iyadoo oo aan la gaadhin natiijadii doorashada marka qaar badan oo dadweynaha ka mid ihi waxa ay ka walwalsan yihiin marka natiijada doorashadu soo baxdo sida ka laga badiyaa natiijada u qaadan doono jawaabta doorashadii ugu horeysay maaha doorasho lagu murmana tii horeysay maaha laakiinse kuwii horeba siday ku dhammaadeen fududay ayman rajeynaa tan inuu ka dhammaan doonto weliba tan way adag tahay oo isdabamarintu aad bay u adagtay tan tii hore waxaynu ogeyn anigu waxaan arkay ninka 12 jeer baan codayay 12 times min sheekh ilaa caynabo oo intaaba gabadho lagu guraayay hargeysa waxaan ku horreeyay inta 13 jeer baan codayay oo inta baasha laga tirtiro laakiinse imika tani waxa weeye way adag tahay oo kaarkaagii 2 jeer kuma codayn kartid haddaad mar ku codayso mar labaad kuma codayn kartid waayo goob mucayana ayaa tegaysaa goob labaad tegi maysid goobtaad mar ku codaysana mar labaad adigoo kaarkiisita oo dee lagu tikireeyay inaad codaysay suulka lagaa saaray ma codayn kartid marka isdabamarintu si kale ayay ku iman kartaa oo taakiiniya bay ka cabanaysa ay leedahay serverkii waxaas ayaa la farageliyey berigii ayaa qoran muraaqibiin tiri maxaynu saddex xisbi maxaynu ka tala galnaa haddii natiijada soo baxda ay ku qanci waayaan marka anagu udubanaga ka adagoo qabanayna laakiin waxaan umaleynaya kulmiyin koofi aanan u doontaan mooyaane sidii tii kenya annagu kulliba kuwii qaata ayaanu noqonayna kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha ku-meel gaadhka ah ee xisbiga wadani mudane xildhibaan cabdilqaadir xaaji ismaaciil jirde oo aniga oo maxamed kayse ahi aan ku waraystay barnaamijka kasmo iyo kaskaaga qaybtiisa qiimaynta siyaasiga magaalada Hargeysa.